awaysi wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararka madaxdiisa iyo caawana Winnie Mandela oo ahayd halgamaa ka soo horjeeda midabta koorka Koonfur Afrika ayaa maanta geeriyooday iyadoo da'deedu ay ahayd 81 jir waxay ahayd xaaskii hore ee Nelson Mandela magaalada Muqdisho 3 qof ayaa ku dhintay qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen markii goob dhisma uu ka socday ay duntay warbixin ayaanu idinka haynaa Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia oo maanta shaqada la wareegay ayaa Eritrea ugu baaqay wada hadal waxaa goordhawey dalka Koonfur Afrika lagaga dhawaaqay geerida Winnie Mandela oo ahayd halgamaa ka soo horjeeday nidaamkii midabta koorka Koonfur Afrika Winnie waxa kaloo ay ahayd xaaskii hogaamiyihii ugu horeeyay ee madow ah ee madaxweyne ka noqda Koonfur Afrika Nelson Mandela si kastaba ha ahaatee sanadihii dambe waxaa sumcadeeda waxyeelay dhacdooyin xagga siyaasadda iyo sharciga ah Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa inoo haya taariikh nololeedkii Winnie Mandela Winnie Mandela waxa ay jirtay dhowr iyo 20 markii ninkeeda la xiray waxay calaamad u noqotay halgankii xorriyadda ee ninkeeda iyo xornimo u dirirkii dadkeeda aniga iyo dadkayguba ma lumin doono rajada waliba waxaan filaynaa in dadaalku uu hore u sii socon doono dhinaceeda kacdoonkii Soweto ee 1976 ayaa keenay 8 sano oo ciqaab ah Brantford gobolka Free State oo u ah Serbiyada Koonfur Afrika markii Winnie Mandela ay ku laabatay Soweto tuulooyinka ayaa kacay dhalinyaradii madowga ahayd ayaa bilaabay inay dilaan kuwa dawladda u shaqeeya iyagoo taageero holcaya qoorta u geliyay Miss Mandela waxay u muuqatay inay raalli ka ahayd sumcadeedii waxa sii xumeeyay kuwii ilaalinaya ee loo yaqaanay naadiga kubadda cagta Mandela oo argagax ku riday bulshada waxa lagu eedeeyay inay yaraystay dhowr dil oo uu ku jiray 14 jir Stombi Moketsi oo u ololeeya bulshada waxay beenisay in wax khalad ay samaysay laakiin hogaamiyaasha dadka madow ayaa ku eedeeyay in qaranka ay qiyaantay waa ay degtay arrintu markii 11 Febraayo 1990 iyadoo ku helisa ninkeeda talaabooyinkii ugu horeeyay uu qaaday isagoo xor ah 27 sano oo xabsi uu ku jiray laakiin maxkamad ayaa la keenay iyadoo oo loo haysto afduub iyo weerarkii Stombi si aan la ogeyn marqaatiyaashii muhiimka ahaa ayaa la dilay caddayntii ayaana luntay Winnie Mandela waxa lagu helay dambiye yaryar waxaana lagu xukumay 6 sano iyadoo si aan la filayn loogu soo gaabiyay ganax 3,000 oo racfaan sita mar dambe darawalkeedii ayaa ka hor qirtay guddiga xaqiiqo raadinta iyo dib u heshiisiinta in uu been sheegay si iyadoo uu difaaco marka kadib Winnie waa isfureen Nelson Mandela waxayna ku soo laabatay siyaasadda iyadoo loo doortay madaxweynaha naadiga haweenka ee ANC kadib waxay kursi ka heshay baarlamaanka Koonfur Afrika doorashadii ugu horeysay ee xora 1994 ninkeedii hore ayaa u magacaabay wasiir ku-xigeenka fanka isagoo aqoonsaday qiimaheeda dawladda cusub laakiin markiiba booliiska ayaa galay gurigeeda iyagoo oo baadi goobaya dukumiinti la xiriira heshiisyo musuqmaasuq ah oo iyadu ay qabanqaabisay waxa lagu eedeeyay in si khaldan ay u isticmaashay lacagta naadiga haweenka ANC Winnie Mandela sida lagu yaqaan waxay ahayd qof soo taagan xitaa iyadoo caddayn guddigu ay soo hordhigeen ma ciyaarayo uma dulqaadanayo inaad sidaas iila hadasho kaama yeelayo haweenaydii dumar badan ay ugu yeeraan Winnie waxay sidoo kale isu taqaanay codka dadka dulman kuwa saboolka ah ee Koonfur Afrika ee ku wareeray heerka hoose ee nolosha dhibka ah kadib dhamaadkii maamulkii caddaankii laga tirada badnaa sidoo kale markii 2008 ay dadkaasi caradooda u soo saareen xaafadaha ajaaniibta intii ay socdeen weeraro ba'an oo ajnabi nacayb ah Winnie Mandela waxay ahayd qofkii ugu horeeyay ee ANC ee ka hadlay
waxaan halkan anigoo ku hadlaya codka ANC iyo qof walba oo ay khusayso ay koonfur afrika leedahay waan ka xunnahay aad ayaan uga xunnahay waxa dhacaya annagaa ka mas'uul ah muddo kadib Winnie waxay u muuqatay qof dib uga istaagay xulafadeedii siyaasadda halkan waxaa lagu arkayaa iyadoo taageeraysa siyaasiga muranka dhaliya Julius Malema taasoo niyadjab ku ahayd qaar ka tirsan xisbigeeda marka la fiiriyo shakhsiyaddeeda Winnie xiriirkii ay la lahayd saygeedii hore Nelson Mandela wuxuu ahaa mid aan la loodin karin sawirradan waxay ahaayeen sanad guradiisii 94aad ee dhalashadiisa oo Winnie ay dhanka taagan tahay iyo xaaskiisii Grace Michelle Winnie Mandela damaceedii siyaasadeed waxaa suurtagal ah inuusan shaqayn balse waxa ay muujisay inay ahayd haweenay awood leh sumcaddeedii hore waxaa dhaawacay oo hoos u dhigay fadeexooyin badan inkastoo dad badan ay ku xasuusan doonaan inay ahayd hooyadii qaranka faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga magaalada Muqdisho dhismo qabya ahaa oo shaqo ka socotay ayaa ku duldumay shaqaalihii halkaasi ka howlgalayay sida ay BBC u sheegeen kooxaha gargaarka iyo mas'uuliyiinta deegaanka waxaa ku dhintay goobta dhismuhu ka socday 3 qof oo ka mid ahaa dadkii halkaasi ka shaqaynayay waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo kale wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa goobtaasi booqday oo warbixintan Muqdisho nooga soo diray dhismahan waa dabaqa hoose oo dhulka hoostiisa in la geliyo la rabay balse shubkii la dhisay ayaa ku soo dumay qaar ka mid ah shaqaalihii ka shaqaynayay halkan waxaa loo aanaynayaa carrada oo jilicsanayd iyo roob ka da'ay Muqdisho markii dhismahan uu socday waxaa halkan la doonayaa in laga dhiso guri dheer ama fooq dheer la doonayay in laga dhiso markii ay wax dhaceen waxaa soo gaaray gaadiidka gurmadka degdega ah qaarkood ayaan weydiinay wixii ay la kulmeen derbi shuba oo la dhisayay oo meel goda laga qoday ayaa ku soo dumay dadka shaqaalaha ahay meeshaas waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac anaka hadda aamin ambalaas nahana waxaan sameynay gurmad caafimaad oo dadkii dhaawac iyo dhimashada waxaan kala qaadnay isbitaalaadka magaalada Muqdisho ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa iyana yimid oo halkan gurmadka qayb ka geystay halka aan ku suganahay waa Shaleemo Equatorial number 4 waxaa ka socday dhismo bareefad ah waxaana soo gaartay inay dhismihii uu soo dumay dad shaqaalaana ay waxyeello ka soo gaartay gurmad degdeg aan ugu imaanay waxaan la kulannay 3 qof oo dhimasho ah iyo 2 qof oo dhaawac ah shaqo fiican oo gurmad iskaashi ah dhacay oo gobolka Banaadir iyo booliiska ah in dhismayaal waaweyn ama dhismayaal socda ay dumaan Muqdisho kuma badna waxay noqonaysaa xaalad naadir ah oo inta badan aanan ka dhicin magaalada Muqdisho balse qaabkan cusub oo dhismayaasha Muqdisho cusub la dhisayo loo bilaabayo oo dhanka hoose laga soo bilaabayo ayaaba gabi ahaan ah mid ku cusub dhismayaasha magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho baarlamaanka Ethiopia ayaa maanta dhaariyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Abiy Ahmed Mr Abiy ayaa dhawaan loo doortay hogaamiyaha xisbiga talada haya Ethiopia iyo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay in dawladdu ay ahayd buuri inay ka hortagto dadkii ku dhintay rabshadihii dalkaasi ka dhacay 3 sano ee la soo dhaafay isagoo intaana raaciyay in horumar la'aanta xagga dimuqraadiyadda ay sabab u ahayd dhibaatada Democracy yalan annas ay tasabun dimuqraadiyad xorriyad la'aan ah suuragal ma ahan xorriyadduna ma ahan mid ay dawladda deeq ahaan u siiso shacabkeeda balse waa mid qof kasta oo bini'aadam ah uu xaq u leeyahay inuu helo xorriyaddaasi waxaa si cad u qeexaya dastuurka laguna caddeeyey xorriyatul qowlka iyo dhammaan xuquuqaha dimuqraadiyadeed ee muwaadinku leeyahay waxaan taas ku helaynaa dastuurka oo si buuxda aan u meel marino sidoo kale maruu ka hadlayay ra'iisul wasaaruhu arrimaha gobolka Geeska Afrika waxa uu soo hadal qaaday khilaafka dalkiisa iyo Eritrea u dhaxeeya oo ugu baaqay wada hadal ከኤርትራ መንግስት ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት waxaan dhab ahaantii doonaynaa in sanadaha isfahan la'aanta ee Eritrea la soo afjaro qayb ayaan dhankeena ka qaadanaynaa waxaan muujinaynaa inaan diyaar u nahay xallinta khilaafka iyadoo loo marayo wada hadal ay ku jirto danta labada shacab ee wadaaga dhiigga iyo dhaqanka waxaan dawladda Eritrea ugu baaqayaa in tallaabo noocaas ah ay qaado
haddaba dowladda Eritrea ayaa hadalka ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia ku tilmaantay mid aan waxba soo kordhinin. qoraal ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa lagu yiri kama duwana wixii ay hore u sheegay kii isaga ka horeeyay. kubaddu waxay muddo dheer tiilay garoonka Ethiopia, muran ma jirin tan iyo markii uu dhamaaday khilaafka 16 sano ka hor. Ethiopia waa inay dhowrto waajibaadkeeda iyo heshiiska, isla markaana xushmayso madax bannaanida iyo sharaf dhuleedka Eritrea iyadoo ka baxaysa dhulka ay haysato oo ay ku jirto Badme. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay weeraro Boko Haram ay ku soo qaadeen waqooyi bari Nigeria, 70 kalena waa ku dhaawacmeen. militariga ayaa sheegay 7 qof oo miidaamo ah inay weerareen 2 tuulo iyadoo dab la hubaysan ay weerareen xero militariga leeyahay. maleeshiyaadka ayaa guluf ku soo kiciyay Maiduguri, laakiin dib ayaa loo waabiyay. ergeyga midowga Afrika oo qaabilsan Soomaaliya Ambassador Francisco Madiera ayaa ku sheegay war-saxaafadeed maanta soo baxay in ciidamada AMISOM ay iska caabiyeen weeraradii isku marka ahaa ee saldhigyadooda Buulamareer, Qoryooley iyo Golweyn ay Al-Shabaab ku soo qaadeen shalay. waxaana intaa raaciyay in ugu yaraan 30 Al-Shabaab la dilay. Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegtay inay dileen 59 ka tirsan AMISOM. lama hayo ilo madax bannaan oo suga warkani. in ka badan 16,000 oo Soomaaliyeedka Afrikaanka ah ee imika Israa'iil ku nool ayaa dalal kale la dejin doona oo ay ka mid yihiin Canada, Germany iyo Italy. sidaana waxaa sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, isagoo inta raaciyay in dawladdiisu ay heshiis la gashay hay'adda qaxoontiga dunida ee UNHCR. Israa'iil ayaa hore ugu goodisay in muhaajiriintu laba kala doortaan, in xabsi la dhigo oo dalka xoog lagaga saaro ama ay iskood dalka Israa'iil uga baxaan. dayax-gacmeedkii ugu horreeyay ee ay Shiinuhu hawada sare u diraan ayaa burburay. dhulka ayuu ku soo dhacay 2 sanadii ugu dambeysay. waxaas uu soo gaaray imika hawada ka sarreysa. 2 sano ugu dambeysay idhaahday ayuu hawada ku jiray. imikana waxa uu soo gaaray dhulka badda ka sarreysa koonfurta Pacifica. waxaana la aaminsan yahay qaybta ugu weyn dayax-gacmeedku inay burburtay markii ay soo galaysay hawada. Caaisha Afrax ayaa ka warramaysa. kaasi waa wacdarrihii rajada ee Shiinaha oo sii laba qarxaya. aas-aasidda saldhigga cirbixiyeennada dalka Shiinaha ayaa lagu hami weynaa in ay noqoto xarun ay ka diri doonaan dayax-gacmeedyo fara badan. laakiin ilaa iyo kolkaasi gaadiidkan hawada ee uu culayskiisu yahay 8,000 oo kiilogaram ayaa joojiyey shaqadiisii kadibna dhulka dib ugu soo dhacay. hadallo badan ayaa ka taagnaa goobta uu ku soo dhici doono, waxaana la qiyaasayay meelo ay ka mid yihiin Afrika, Bariga Dhexe iyo bartamaha qaaradda Aasiya. ugu dambayntiisa badda Basifika ayuu ku soo dhacay, waxaana la sheegay in intiisii badnayd ay ku soo burburtay hawada dhexdeeda. tani waa ay ka fog tahay yididiiladii laga lahaa goortii la aas-aasay oo ay 2 koox oo cirbixiyeenno ahi ay hore u soo booqdeen. Shiinaha ayaa sheegtay in arrinkani ay u xallisay si waafaqsan heshiisyada waxayse tani dhabarjab ku noqotay sumcadda barnaamijkoodii cirbixinta hawada sare. caawiyo wararka ciyaarahan haddaan ku bilaabay xagga kubadda cagta. dhammaadkii toddobaadkan umuu xumeyn Tottenham waxay ku guulaysteen Stamford Bridge stadionka la yidhaahdo 28 sannadood markii ugu horreysay. waxay ku garaaceen Chelsea oo garoonkeedii ku ciyaaraysa weliba 3-1 ayaa Chelsea lagu jiiday. kaalinta afraad ayaa Tottenham ka galeen imika horyaalka Ingiriiska. xagga feedhkana waxaa bilaabmay wadahadal la rabo in ciyaarta feedhka ugu weyneyd sanadahan la qabto. Anthony Joshua ayaa imika haysta 3 sun oo ka mid ah 4 sun ee waaweyn ee feedhka. ka afraad si uu u haleelo waa inuu ka badiyo. Deontay Wilder oo Maraykana waxa uu sabtidii ka badiyey Joseph Parker oo New Zealand u dhashay. inta aananu hawada ku kala teginna bal xagga qoobka ciyaarka iyo Gangnam Style oo robotkan isku laba rogayo. ciyaartuun maahay robotkan 23 luqadood ayuu ku hadlaa. waxaana la rabaa inuu carruurta wax baro. magaciisu waa Elias, wuxuu ku jiraa Finland. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyay waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bbcsomali.com. sidaas iyo nabadgelyo.